halkan aan ku suganahay waa garoonka Centennial Park oo maanta ay ka furmatay ciyaaraha Somali Week oo soo qaban qaabiyay ururka Today waxa ka qayb galaya ciyaarahan ilaa iyo 15 koox oo ka kala yimid magaalooyinka dalkan Canada dalalka Yurub iyo waliba Mareykanka sanadkan waxaan ugu talagalnay haliyay sports Farax Weeliye Cadow oo legend of Somalia aha ciyaaryahan soo dheelay garsoore soo qabtay maamul soo qabtay ilaa heer FIFA u gaaray waxaan leenahay darajadaas aad iyo darajo aan ku faano aan ku faraxna ay tahay haddaba waxa ka qayb galaya ciyaarahan rugcada ciyaaraha oo qaybaha kala duwan ciyaaraha dabcan markaasi xilliyadii barsamaadkii ciyaari jiray oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ee dalkan iyo waliba dibadda runtii ciyaaraha aad iyo aad faa'iido weyn iyo ilmo fiican oo u ciyaari kara national teamka ayaa ka soo bax aniga waxaan ka imaaday Ingiriiska hadda sanadkan hal tiim ma socdo oo Hilltop liiraado oo runtii aad u diyaarsan sanadka hore tiimka nabadda tiimka liiga oo North London ayaa koobkii halkan ka qaaday marka runtii waa Yurub ay ka yimaadaan America ka yimaadaan marka runtii ciyaartoydu way isku dhex bartaan ay laftigooda xataa faa'iido weyn ayaa laga helaa runtii waxaas arkay dad isku ka dambeeyay 30 sano 40 sano ayaa soo joognaa maanta marka runtii isdhexgalka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay in ciyaaraha la qabtaa aad u fiican tahay Somali Week waa ciyaar aad iyo aad tournamentigeedu u adag yahay oo adduunyada daafeeda la iskaga yimaado Ingiriiska gobolada kale oo Yurub ilaa North America ayaa looga yimaadaa runtiina waxa way waa tournament sanad walba ciyaartoydii hore oo legendka oo nooc walba leh ee ka soo qayb galaan dhalinyarada waxay ka caawin karaan adaasaa ula socotid North America aan noqoto Soomaaliya aan noqoto Yurub aan noqoto caalamka meel kasta ajoog aan noqoto annagii waxa weeye wadankeena ayaan ka soo tagnay wadan waxaan nimi يعني كلجركيس وحياله بدن أنو كل دوّناه مركب وحاوي هدان المها قعنت لجو هنن وحاوي فريق بحاين أنا جا immigration كانوا شقينا هي حبسية بدن بنتجي رنتي وديابسة أنت الصومالي كحرن ووح مزدمين أو وح عن معنا لهن يعني أحرن مركب عيارها وحكيني كران إنه وح حاسيت ودن ماركتي kala dagaalamaan ciyaarahan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 22ka bishan waana ciyaaro sanad walba la qabto taasoo dadka qaban qaabiyaashu ay ku sheegeen inay tahay mid looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo ama lagu mashquuliyo dhalinyarada si ay uga fogaadaan dhibaatooyinka kala duwan oo muqaadaraadka iyo dilalku ay ka mid yihiin Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto